واد علامينيسا بس وأكل يعني ذكاء اللابن قفقاد علامينيسا والفودي بيا هذه أقلك كم فريو كانت هذه فرصة كوغاني هذا وحنا بلامانيسو دورشة وقت جدي وحيد دردارنا دورشة كده بيسا حضرت كمر كانتينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الوهاب البشير بدل عمر بن عبد مولي عمر كراد عبد الوهاب البشير بدل عمر علي عبد مولي عمر كراد محمد عيسى محمد عمر سياد محمد عبد الوالد محمد عيسى محمد عمر سياد محمد عبد الوالد عبد الطول يوسف شيرازي عبد الكريم محمد محمد شيخ عبد الواحد أبو بكر عبد الجردي حسين محمد سعيد عبد الله يوسف كامل الشيخ عمر حسن مهد محمد 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 حسن بلي أحمد عدلي مهد محمد حسن مهد محمد حسن بلي أحمد عبدالله مهد محمد حسن مهد محمد حسن مهد محمد حسن بلي أحمد عبدالله مهد محمد حسن مهد محمد حسن مهد محمد حسن مهد محمد حسن بلي أحمد عبدالله بلي أحمد عبدالله مهد محمد حسن مهد محمد حسن مهد محمد حسن بلي أحمد عبدالله مهد محمد حسن بلي أحمد عبدالله بلي أحمد عبدالله مهد محمد حسن مهد محمد حسن مهد محمد حسن مهد بلي أحمد عبدالله
بلا أحمد عبد الله بلا أحمد عبد الله مهد محمد حسن بلا أحمد عبد الله مهد محمد حسن 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 بلا أحمد عبد الله مهد بلا أحمد عبد الله بلا أحمد عبد الله مهد محمد حسن مهد محمد حسن مهد محمد حسن بلا أحمد عبد الله مهد محمد حسن مهد محمد حسن بلا أحمد عبد الله مهد محمد حسن بلا أحمد عبد الله بلا أحمد عبد الله مهد محمد حسن بلا أحمد عبد الله بلا أحمد عبد الله مهد محمد حسن بلا أحمد عبد الله مهد محمد حسن مهد محمد حسن بلا أحمد عبد الله بلا أحمد عبد الله dhammaantiin waad mahadsantihiin inta codkooda sharafta la isiisay iyo intaan isiiba mahad kal iyo laabo ayaan u celinayaa ilaahay baa mahadsan si sharaf leh inoogu soo dhameeyey brograamkan halkan ku qabsanayna doorashada ahaa meeshaan cid guulaysatana ma jirto cid la guulaysta ma jirto waa la wada guulaystay waynu wada guulaysanay anaga iyo saaxiibkay bilaa waxaan si sharaf iyo karaamo ku dhahan tahay mar labaad idinkaga mahad celinayaa waqtigiinnii karaamada lahaa iyo sharafta lahaa ee ana soo hortaan waxaan mar kale u mahad celinayaa guddigii qabanqaabada iyo howlgalleenadii waxbarashadan iyo doorashadan aan idhaahdo sida sharafta leh quruxda dambeeda wada arkayseen usoo habeeyey barnaamijkan way ku mahadsan yihiin markaan waxaan rabaa inaan hadalka kusii dhaaraan madal tan ka sii ballaaran ayaan isugu iman doonaa insha allahu xog iyo warbixino dheeraad isku siin doonaa insha allah aad baad umahadsantahay cabdiraxmaan alxamdu lilaah hore waxaa loo yidhi gari laba qofood kama qoslayso meesha waxaan u soo istaagay waa inaan guulaysto ama layga guulaysto alxamdu lilah waan ku faraxsanahay inuu gudoomiyaha ururka horumarinta ardada gobolka hiiraan uu ku soo baxo mahad maxamed xasan aadaan ugu hambalyaynayaa waxaanu leeyahay kee oo wax fiican iyo wax oo la taaban karo qabto labadan walaalahayga garbaha taagan gudoomiyaha cusub ee way yeesheen ururka horumarinta ardada gobolka hiiraan hiisda waa u hambalyaynayaa walaalkayga mister bile oo ah runtii
wiil Soomaaliyeed oo aad u dhiiran jecelna yani maxaan ku lahaa inuu hormariyo aqoontiisa bulshadooda aad iyo aad ayaan maanta u faraxsanahay in laba saaxiibadeed ah oo aan ogahay inay ila soo shaqeeyeen oo aan ogahay inay garab istaageen maanta insha allahu tacaala anagana si la mid ah maamulka cusub oo yeelanayo ururka horumarinta ardada gobolka Hiirda sidii ay ula soo shaqeeyeen si ka fiican ayaan ula shaqeynayaa hadda kadib hadduu ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala walaalkayga ku guuleystay Mahad Maxamed Xasan Mahad Beyle insha allahu tacaala shaqo aad iyo aad u culus ayaa hortaalo waxaa yani la rabaa in dad aqoon-yahano ah in dad wax bartay oo isku keeno fikirkooda iyo aqoontooda uu aruuriyo oo ugu faa'iideeyo ururkaasi dadka gobolka Hiiraan iyo waliba dadka Soomaaliyeed waad ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkii sida quruxda badneed aad gurihiina uga soo tagteen oo aad doorashada uga qayb qaadateen waxaan rajaynayaa in insha allahu tacaala sidaan si la mid ah ay u dhici doonaan doorashooyinka ururka waana ku mahadsantihiin insha allahu tacaala aad iyo aad ayaan idin salaamayaa